ku-xigeenka xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Qadar wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasiirada ka jooga golaha wasiirada oo caawa wasiirkii ugu dhalinta yaraa Islow iyo wasiirkii dhalinta cuslaatay qalooco labadaba waa joogaan sidoo kale taliyayaasha ciidamada oo General Bashir nagala joogo horena uu ahaa bahda isboortiga qof sumcad iyo kule xubnaha labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare nala jooga gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani dhammaan marti sharafta kale ee nala joogta maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka haweenka dhalinyarada maamulka iyo kooxda 17 jirada ee qaranka Soomaaliyeed oo caawa halka marti noogu ah iyo dhammaan marti sharafta bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii caawa farxad weyn bay noo tahay inaan halkan xaruntii dowladda hoose ee xamar idinku casuuno sharaf weyn bay noo tahay wasiir Khadiija iyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo xiriirka kubadda cagtana waxaan aad uga mahadcelinayaa dadaalka ay u galeen in kooxda Soomaaliyeed ee qaranka ee 17 jirada ay guul oo runtii aad loogu riyaaqay ay soo hoyaan taasna waa mid runtii aan ka filaynay ujeedada marka xafladdan waxay tahay in dhalinyaradaas 17 jirada ah iyo ka yarba sharafta iyo karaamada magaca ummadda Soomaaliyeed ku soo ciyaaray sharaf iyo karaamo u soo hoyay inaan marka hore dhahno abaalkiina lama gudi karo aad iyo aad baa u mahadsantihiin taariikhdan idin xusayso runtii ummad walba waxaa lagu yaqaanaa inay dadkooda halgamayaasha garab istaagaan u hiiliyaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeedna waxa keeni kara waxay tahay qofkii calankaas Soomaaliyeed matalay tagay dalka Burundi isla markaana kooxihii adkaa Kenya iyo Ethiopia iyo Ugandaba runtii ka soo adkaaday waxay ahayd taariikh aan hore loo arag ayagana waxaan leenahay dadaalkiina waxaan idinkaga rajaynaynaa inaad si laba jibaartaan haddana cayaaraha idin sugayo Augustana waxaad ogaanaysaan in shacabkii Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay idin garab taagan yihiin inay diyaar u yihiin in farxadiina ay aad u jecel yihiin dhiirigelin idin noqoto idinkana idin noqoto dad waajibkoodii gutay ee qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed ku lahaayeen intaas ka sokow waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda qaranka oo ra'iisul wasaaruhu ugu xukuumadda maaragtay u hogaamiyo iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkaba sida qiirada leh oo ay shucuurta ummadda Soomaaliyeed uga jawaabeen isla markaana u dhiirigeliyeen ciyaartooyda Soomaaliyeed oo wafdi heer sare oo hogaaminaya ra'iisul wasaare ku-xigeenkana tageen dalka Burundi si ciyaartooyda niyadda ugu dhisaan una sheegaan inay dal iyo ummad ay matalayaan ay maaragtay ka dambayso taasna waxay ahayd runtii arrin aad loogu farxo waxaan rajaynaynaa ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan in wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo xiriirka kubadda cagtaba runtii looga mahadceliyo guushaas iyada ah sidoo kale iyadana waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo waalidiinta iyo macallimiintii waqtiga geliyey dhiirigeliyey u ogolaaday caruurtooda inay u matalaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalkaba taasna waa tan keentay guusha aan maanta hiigsanayno dhalinyaradan 17 ka yar waxa ay muujiyeen maaha cayaar keliya waxay muujiyeen waa midnimo wadajir waxay muujiyeen inay matalayaan calankoodii iyo waddankoodii ciyaarta markay dhamaatayna sida qiirada leh oo runtii ay u malaysan kari waayeen ay u ooyeen waxayna tusaysay jacaylka ay u qabaan dalkooda iyo dadkooda taasna waa midaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayno caawa waa habeen farxadeed waa habeen aan dhalinyarada leenahay waajibka gudateen annagana inaan idinku dhiirigelino idin garab istaagno ayaan maaragtay halkan u joognaa